wafdigan ka socday gudoonada baarlamaanada maamul goboleedyada dalka ee Beledweyne maanta soo gaaray waxaa gegida diyaaradaha Waas Khaliif ee Beledweyne ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Hirshabelle Mudane Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed maayarka Beledweyne Marwo Nadar Tabax maalin gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka Xasan Ibraahim Cabdulle mudanayaal ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada socdaalka ay mas'uuliyiintan Beledweyne maanta ku soo gaareen ka socotay baarlamaanka maamul goboleedyada dalka ayaa salka ku haya wareejinta deeq ka kooban raashin iyo daawo taas oo dhankooda mas'uuliyiintaas ay uga qayb qaadanayaan gurmadka loo sameynayo dadkii khasaaraha uu ka soo gaaray qaraxyadii ka dhacay Beledweyne bishii aynu ka soo gudubnay isla markaana dhinaca kale ay dhankooda ku dhiirigelinayaan howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee Hiiraan ka socda oo ay wadaan ciidanka dib u xureynta deegaanka iyo kuwa dowladda deeqda isugu jirtay raashinka iyo daawada ayaa mas'uuliyiintaas waxa ay ku wareejiyeen maayarka Beledweyne Marwo Nadar Tabax maalin mas'uuliyiintan oo gudaha Beledweyne loo soo galbiyay ayaa soo kormeeray xarumihii ku burburay qaraxyadii Beledweyne ka dhacay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed ayaa ugu horeyn wafdigaas Beledweyne ku soo dhaweeyay waxa uu kaga mahad celiyay deeqda ay soo gaarsiiyeen Beledweyne reer Hiiraan gaar ahaan shacabka degan magaalada Beledweyne waa idinka mahad celinaynaa waxaan ka mahad celinaynaa istididii aad ka timideen walaalnimada iyo midka qurux badan baan naga idin haynaa allahana idinka abaal mariyo baan idin leeyahay saamankii aad soo qaadeen soo dhawaada magaalada Beledweyne oo arkaysaan dhibaatadii qaraxii uu geystay iyo qaraxyadii isxigay ee magaalada Beledweyne ka dhacay waxaan filayaa burburka iyo waxaad idin ku aragtaanba waa wax aad ogtihiin in nimankii dhibaatada geysanayay shacabkan ay ku hayaan 24 saac mar walbana laga yaabo in shacabka si dhibaateeyaan waxaan leenahay Allah naga dul qaado marka koowaad marka labaad waxaan ka mahad celinaynaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya oo asagana qayb weyn ka ahaa safarkan maashihiisa daawadii uu soo dhiibay iyo raashinkiiba garab istaagsan yahay dadka reer Hiiraan reer Hirshabelle guud ahaan gaar ahaan dadkii reer Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne oo musiibooyinka ay ka dhaceen aad ogtihiin laba safarna inuu noogu yimid naguna soo booqday haddana weli oo soo durayo wafuud kale si ay u soo booqdaan dhibkii u arkaan waxaan ilaahay ka baryaynaa dhibkii naga dul qaado gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ahna kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Maxamed iyo ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug Faadumo Cabdi Cali ayaa dhamaantood iyana dhankooda warbaahinta la hadlay qasaarihii ka dhashay qaraxyadii ka dhacay Beledweyne ay dadka reer Hiiraan uga tacsiyeeyeen waxayna dhanka kale ay bogaadiyeen howlgalka Al-Shabaab ee kula jiraan oo dadka reer Hiiraan ay wadaan oo nabadda ay ka shaqeynayaan inay ku dadaalaan oo aysan niyad jabinin Soomaaliya oo dhan baa garab taagan Soomaaliya oo dhan baana la shaqeynaysa hadii la yiraahdo ka Galmudug ahaan waad ogtihiin mar walba waxaan taaganahay garabkiina waxaan nahay daris waxaan isla qabsanaynaa culayska iyo baahiyaha iyo dhibta amni xumada dhamaanteed runtii meeshaan hadda maanta aan taaganahay qof muslim ah oo Ilaahay yaqaano iyo qof kaalaba ma taagnaan kara damiirtiisana ma siinayso inuu meeshaan dhex istaago oo dhaho qof baa sidaan u galay fikirkiisa iyo aqligiisa ku dudumiyay meel Soomaaliya dib loogu soo celinayo oo dad maraso masaakiina loogu gurmanayo lagu yiri dawlad iyo sharci iyo kala dambeyn baan ugu sameynaa qof damiir leh kama suurtoodino sidaan u baabi'iyo dadkina ku baabi'in eheladii dadka halka uga baxeen waxaan leenahay samir iimaan buuxa Allah idinka siiyo dawladana waxaan leenahay garabkiina waa idinla dhisi doonaa waan idinla shaqeyn doonaa dadka warbaahinta ee maanta noo hortaagan ee nagala qayb qaatana waa idin mahad celinaynaa dhamaantiin mudane gudoomiyaha ayaad u mahadsantahay waqtigaad gelisay inaad halkaan nagu soo dhaweyso gabdhaha walaalaha ee garbahayga taagan ee madaxda ahna waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sidaa noo soo garab istaagteen noo la qaybsateen waajibaadkii aan gudanayno runtii waan hadli kari laahay jirka ayaa idubaaxinaya sababtoo ah qofku markuu yimaado oo indhihiisa ku yimaado iyo markuu warbaahinta ka dheehdo isku mid ma ahan isku dhadhanna ma ahan waxaan rabaa Soomaaliya oo dhan oo ugu horeeya madaxweynaha inaan baaq u diro sidii nabad lagu astaaxin lahaa in wadankan laga shaqeeyo marka laakiin waxaan leeyahay
wax iyaga ay eedi doonaan waxaan idinkugu hambaleynaynaa marka koowaad sida aad isaga dulqaadeen ee aad isugu tashateen inaan idinku hambaleyno horta maanta idinku nimid wax kale ma aha dad bani aadamka u dhimanaya ajashu wax ilaahay agtiisa ka qoran tahay asbaabtana waa kala duwan tahay asbaabta lagu dhinto waa kala duwan tahay laakiin ajashu waa mid waxaad ogaanaysaan ama aad ogtihiin mid baa webi iskaga dhimanaya mid baa dhurwaa cunaya mid baa u dhimanaya qodaxa mudday midna wuu shahiidaya wax lagu dhinto wax ugu wanaag badanna waa shahiidka marka dadkii inta ku dhintay horta waa shuhado ilaahay horta jannuu geyn doonaa sababtoo ah waa laga gardaraa dad islaama oo ahlu tawxiida oo danahooda qabsanaya ahaayeen marka dadka ku gardaroodayna sida looga aarsaday ee reer Beledweyne ay isugu xilqaameen inay iska dulqaadaan khawaarijta ee noo watay shaatiga islaamka shaqana aan ku lahayn diinta islaamka waxaad ogtihiin annaga islaamaan nahay macallinka islaamkana waa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun anna waxaan ka qayb qaadanayaa dibkii dhacay inaan murugadii iyo aynan la qaybsado halkan waxaa ka dhacay dib weyn oo aad iyo aad u weyn waa dadku waxay sheegaan zoba wan intaaba ka daran saan hadda aan u arkay intaaba ka daran marka waxaan leeyahay intii ku dhimatay ilaahay u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay u baagoday anaga oo wafdi ah oo uu nagu soo dhaweeyay halkan gudoomiye Luqmaan marka wafdigan waxaa soo qaban qaabiyay ra'iisul wasaare ilaahay asagana ajar iyo xasanaad ilaahay ka siiyo oga yaro daawo noo soo dhiibay daawadiina waa dibnay marka iyadoo hadda ay qoraxdu kulushahay waxaan leenahay reer Beledweyne ma bahadli karaan hadda anoo dhan si kale u baan marka ilaaha uu naxariisto intii dhimatay intii dhaawacna ilaahu boogadhayo marka Maxamed Ibrahim Siya telefishinka Kalson Beledweyne.